imaaraad dalka saara markaasay Soomaali fayoobe u dhowdahay inay u suuroobaan midaan ku talin lahaa waxay tahay sidoo kale dawladda imaaraadka Soomaaliya laga saaro maamulka ka jira Soomaaliya dawladda dhexe imaaraadka ayadaa soo gelisay Soomaaliya heshiis waxay la saxiixatay inay xor u tahay Soomaalida say doonto inay meeshay doonto mari karto waxay doontana ka samayn karto ana lala xisaabtamay imaaraad marka hadday Israa'iil soo hor qaadaan yaa fasaxay hada fasaxay Sooma imaaraad waxa lagu tilmaami karaa inay tahay waxaan anaga dhihi jirnay muxuu ahaayay waxaan dhihi jirnay shimbir malab ama baal la yiraahdo muxuu ahaayay libaax baalkii hor waris jiray muxuu ahaa daba qoodhi biyo waxa jira waraabo yaro libaax hor socda maale magac baan u dhaqaanay dawac waka magacaas aan dhaqaan waa dawac marka waxa weey libaax hor socda ciidiisa hadaad maqato meesha libaax ka dib marka waxa weey waa waraabo dawaci Israa'iil dawlad ka ifsaad badan caalam islaami uga ifsaad badan ma jirto waana la noolay ahdaasta Soomaa Turkiya afgambigiisii maxay ka samaysay dawr intee lag bay ku lahayd Liibiya ma dawr intee lag bay ku leedahay Yemen iyo burburkeeda dawr intee lag bay ku leedahay Suudaan iyo dagaalada ka socda iyo dacmu sariic dawr intee lag bay ku leedahay Soomaalida iyo madaxdeeda kala haynteeda dawr intee lag bay ku leedahay dawladda xiriir bay leedahay dawlad goboleed xiriir bay leedahay wayna wada haysaa wayna kala haysaa sidaas daraadeed Soomaalidu inta ay imaaraad lugta kula jirto wala meel fog baad ka dooni doontaa